بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 321 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 17kii bishii saddexaad rabiicul awal ee sanadka 1445 isla markaana waafaqsan labadii bishii tobnaad sanadka 2023. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray al-muntakhabu min saxiixi sunna nabawiya qaybihiisa u dambeeyay salaada. waxaanu soo gabagabaynay oo soo dhamaynay salaatul musaafiri, baanu soo dhamaynay oo qasri iyo jamac iyo waxay ahaydba yaanu ka soo baxnay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga karsiyay ka hor janaazadii iyo xakaamteedii baanu ka soo baxnay. inaan zaka iyo baabu zaka bilownay ahayd, laakiin dalabaad badan oo walaalaha xaggooda ka yimid ayaa waxay dhan salaatul istikhara in wax nalooga sheego oo naloo faahfaahiyaan u baahanahay bay dhan. runtii waana arrin aad iyo aad muhiim u ah salaatul istikhara. marka maanta salaatul istikhara ayaanu ku soo gabagabaynaynaa mawduucii ku saabsanaa salaada. kadib zakada ayaanu u gudbaynaa biidn ilbaari. aad baan u faahfaahin doonaa zakada hadduu ilaah yidhaahdo, iyo waxyaabaha ku soo cusboonaaday shirikaadka iyo deymaha iyo waxyaabahaasoo dhan, iyo warshadaha iyo sida zakada looga bixiyo, iyo maaragtay guryaha kirada laga qaatiyo, gawaadhida iyo kambaniyaasha iyo waxyaabahaasoo dhan qaabka zakada looga bixiyaan insha allahu tacaala ayaan wax badan faahfaahin doonaa. xadiidkeennan marka ciwaanka maanta waxaanu ka dhigaynaa salaatul istikhaarati baan leenahay. salaatul istikhaarada iyo qaabka ay tahay. xadiidka waxaa soo saaray umahasitaha soo saaray ilaa muslim mooyaane, intooda kale bukhaari, abu daawuud, tirmidi, arbacu sunanka afarta, abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidi, ibnu maajah iyo bukhaari shantaada soo saaray, laakiin muslim ma soo saarin. lafdigan hadda aanu akhrinay ama aan qaadanayna imaam bukhaari baa iskale. dhowr meeloodna wuu ku soo saaray xadiidkiisa. mujalladka koobaad wuxuu ku soo saaraa xadiidka 1162. waxaa kaloo raqamka xadiidku ku soo saaray 6382 iyo meelo kaleba wuu ku soo saaraa. maaragtay wixii ku saabsan 7000 iyo maaragtay 390 na wuu ku soo saaraa, mise 91 wuu ku soo saaraa. idan xadiidku waa xadiid noocaasa weeyaan. xadiidka wuxuu leeyahay jaabir bin cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma wa ardaah: kaana rasuulullaahi wuxuu sala allahu calayhi wasalam yucallimunaa midna bara alistikhaaratah. istikhaarada ayuuna beri jiray fil umuuri umuur kullihaa dhammaanteed. dhammaan umuuraha annagoo dhan maaragtay ayuu istikhaaro inaan u samaysanuna beri jiray. fil umuuri kullihaa min tacbiir waxaa weeyaan maaragtay caamun uriida bihi lkhusuus baa leeyahay. umuuroo dhan looma jeedo, waa umuuro khaasa weeyaan. kamaa yucallimunaa siduu noo beri jiray asuurata suuradoo min alqur'aani qur-aanka ka mida. suurad qur-aanka ka mida siduu noo beri jiray buu istikhaaradana noo beri jiray. halka waxaad ka qaadanaysaa nabigu suu u beri jiray istikhaarada iyo ahmiyadda ay leedahay, saxaabada suu u beri jiray. yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu: idaa hama hadduu doono axadukum axadkiin bilamri, amar hamigi bimacnaa waa doonitaan iyo dalab. idaa hama hadduu damco weeye ama uu doono hamiyo
أحدكم أحدكين بالأمر أمر هدو هميو فليركع حتى كذا ركعتين فليركع ركعتين مركز من تعبير الجزء وإرادة الكل بهذا يعني الركوع لو ما تشيده الصلاة دي عادي هيد بلو تشيده فليركع حتى كذا ركعتين لبر ركعات ومن غير الفريضة فرض عنهين ثم اللي يقول هي هذو مركو صلاة كذا كذب اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم الله يو إني أنا أستخيرك وأنك خير طلبي بعلمك علمك هذا أنك خير طلبها يا وأستقدرك وأنك كرتان طلبي بقدرتك أود هذا إن هذه كرنسيس الشيء وأسألك وأنك ويديسنا من فضلك هذا العظيم وين يعني إني إلهي واجب لقوله وصاهينه فضل حقي سكي مدون إنه مارتين ونقصينها وحنسينها فإنك هذا تقدير واتكرته ولا أقدر أن أمكره وتعلم وذكته ولا أعلم أن أحموه وأنت أذقنا علام الغيوب وحمقنا الله أوك آياتها اللهم الله يو إن كنت أداته تعلم مدك أن هذا الأمر أمر كان وكان أن هذا الأمر مركز لهذا شيء إن نقعد في عن أن سفري أما زواجي أما ما أرتي أن كان عسيجي يوحى صردن آترى تجارة ذي يوحى صر شيء بعد مقعابسة اللهم الله يو إن كنت أداته تعلم مدك أن هذا الأمر أن هذا سفري بالله أن هذا سفر أما أن هذا الزواج كل بطنت الله أن هذا الأمر أمر كان خير لي خير إنه إيه في ديني أن الدين تيذا يوم معاش إنه لا شيء ذا حياة ذا إيه الدين تيذا دنوي إيه الدين تيذا يوم عاقبة أمري أمر كي عربتي سيدن أو قال وعوي مكوى شكراوي عاجل أمري وآجله أمر كي كصهر إيه كدنبابا فاقدره الله وإيه قدر أما إكرسي لي أنيقا ويسره الله وإيه سهل لي أنيقا ثم بارك الله وبركة لي فيه إيه بركة وإن كنت أداته تعلم مدوك أن هذا الأمر أمر كان شر لي شر إنه إيه في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه الله شيئا ليه عني حقيقي إيقال ليه واصرفني الله أنا إيقال ليه عنه شيئا حقيسة واقدر لي الخير خير الله وإيه قدر حيث كان مال الله لم يشيع خير كاس ثم أرضيني إله مركا مارتي يقول هذه سيويا ثم أرضيني بمعنى اجعلني إيقال راضيا به مثل راضي كوا أرنك هذه قدرتي قال مركا روي وحيد ويسمي ومقعابها يا حاجته دنتو لها ومقعابها يا إخوة الإسلام والإيمان حديث كان حقيقة أنا صلاة الاستخارة وأرنه انت آد مهم واوي وحندول استاقي إن حديث هو فقه سؤال بدن يهي سداد الرموت وعلماء الحديث كان كاقا هالين وفقه أيان ندول استاقي إن كوبا انت ندول استاقي حديث كان وحوشيك يا جابر عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام وحو بري جري كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها أمور أردن يا أهرين أردن أيو استخارة إنان استخارة سنو نبرهي أمور أردن لو بتشي ذي وحيابا معينة ويان وأنو أركي دونا وحي واجبة إيا وحي مارت السنة إيا كواس أردن كما تشيران وحي خير كما تشيران وشيء اسكم مباحة ويان كما يعلمنا السورة من القرآن sida quraanka oo suurada quraan kamida uu noo barahayo istikhaaradan noo bari jiray ahmiyada istikhaaradu ay leedahay qofka muslimka u leedahay bay ku tusinaysaa yaqulu wuxuuna dhihi jiray nabigu ahadkiin haduu doono shay amar oo ganacsi guur shay iska mubaax haduu damco ku soo dhaco laba ragcadood marka hore ha tukado aan faradaan ahayn halka waxa ku baxaya salaad farad استخارة لغما دحسميو مركا وإن لبا ركعدود السنة تكت ثم لا يقول مركا كدب هي هذا الدعاء ها خرست إلهي وحن كا خير طلبها يا بعلمك علمك هذا كا خير طلب وحي خيره إن هذا إيساش وضوء أكتاي أود هذا أنا كا كرتان طلبها يا إن هذا كرسيس شيء واستقدرك بقدرتك أود الله هذا هي إن هذا شيء كرسيسي أوقف قبان كرادي قدك waxaan ku weydiisanayaa fadligaada cadiimka ayaa wax ku weydiisanayaa adigu waxbaad maartay awood baad kartaa shayga wala aqdir aan wax ma karo waad ogtahay anu wax ma ogi waxyaabaha ghaibka ee maqan allaha xogogaal ku ayaa tahay kadib wuxuu leeyahay ilaahayow shaygan uu rabo qofku markaas shayga baad magac dhabaysaa
shaygan ama safar ama guur ama ganacsi waxaasaad leedahay haddaad og tahay khayr inuu ii yahay adduunyadayda iyo aakhiradayda diintayda iyo adduunyadaydaba ama arrintaydan maaragtay soo hore iyo midda dambaba aw caajila amri markuu ducaysanaya shakuraawiga ma gelinayo wuxuu dhihayaa allaahuma in kunta taclamu ana hada alamra ana safarii wey ama zawaaji ama tijaaratii khayrun lii fi diini wamacaashi wacaqibati amri buu dhihi markaa faqdurhu allow maartay lii allow ii qadar ama ikarsi ilaahay ikarsi labadu way noqon kartaa faqdurhu lii allow markaa awoodii aan shaygan ku qaban lahaa ku waxaysan lahaa allow ii qadar faqdurhu lii allow ii qadar wayasirhu lii allow ii sahal waxaa kaloo ku banaan faqdurhu allow ii qadar wey lii anigana waad dhihi kartaa wayasirhu lii allow ii sahal uma baarig lii fiihi allow ii barakay baad le ilaahu shaygan khayr inuu adduunyadayda iyo aakhiradaydaba khayr u yahay haddaad og tahay ilaahu ii qadar iina sahal ama ilaahu i karsi qabashadiisa iyo maaragtay maarayntiisa iina sahal iina barakee ama haddaad og tahay ilaahay shar inuu ii yahay adduunyadayda iyo aakhiradaydaba iyo umuurahayga aakhiraba ilaahu maaragtay wuxuu leeyahay marka iga leexi fasrifu cani shaygan allow ani iga leexi ama aniga i leexi oo shaygan iga leexi khayr meel uu jirana allow ii qadar uma iguna raadli geli oo bimacnaa ku raadli noqda khayrka aad u qadartay iga dhig culimmadu waxay dhaheen fasrifu canii wasrifnii canhu limaada loogu gaabsan waaye fasrifu canii allow iga leexi asaga bimacnaa shar hadduu ii yahay allow haba ii saalinoo iga leexi maxaa inta loogu dayn waaye oo loo yidhi anigana i leexi waxaa dhici karta shayga inaan lagu waafajinin oo lagaa leexiyo laakiin qalbigaadii uu saamayn iyo jacayl weli uu kusii hayo marka asna allow iga leexi anigana qalbigaygii ka masax weeyaan ilaahu yaanu markayuusa qalbigayga raacin khayrkana meel kasta uu yahay ii qadar uma ardinii waxaa kaloo soo ardinii oo bilhamzi la akriyo hamze la akriyo waxaa kaloo soo aroortay uma radinii bihi radinii inaad tiraahdo biduuni hamza radinii bihi ama ardinii bihi labaduna isku macnay noqon hayaano ijcalnii raadiyan bihi mid ku raadli ah allow iga dhig oo shayga ilaahay kuu qadaray haddaada ku raadli noqonin dembi baad ka qaadaysaa intaa waa xadiidka laqbadiisa iyo wixii ku saabsanaa waxaan dul istaagaynaa ilaa 8 axkaam oo culimmadu ka soo saareen xadiidka kow qodobka koobaad xukmu listikhaara salaatu listikhaara xukunkeedu muxuu yahay xukunkeedu waxaan leenahay waa sunno weeye culimadu waxay dhahen ajmaca alculamaau calaa ana alistikhaarata sunnatun mu'akada sunno mu'akado aada u qiimo badan inay tahay inay sunno tahay bay culimmadu markaa isku ijmaaceen oo isku raaceen idan salaatu listikhaara maarata waa sunno wey ama istikhaara in la samaysto sunno weeyaanoo waajib mayo taa waa qodobkii koobaad halka waxaan ogaanay xukmu listikhaara inay waajib ahayna sunno ay tahay labo sababuhaa sababka istikhaarada keena muxuu yahay a'immadu afarta madaahiba waxay isku raaceen ittafaqat ala'immatu calaa ana alistikhaarata takunu fi lumuuri alatii laa yadri alcabdu wajha asawaabi fiiha ama ma huwa macruufun khayruhu aw sharuhu كالعبادات وصناع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها سببك كان علماء waxay isku raacsan yihiin inay istikhaaradu ay tahay waxyaabaha keena umuurta mubaaxa ah ee qofku uu sawir ka haynin sawaabkeeda iyo khayrkeeda iyo sharkeeda uu sawir ka haynin taa markuu rabo inuu sameeyo weeyaan marka istikhaarada waxay imanaysaa yaani waxyaabaha mubaaxa ah oo khayr iyo shar wuxuu ku yahay ciribtiisa damaada war ka haynin markaa damacda inaad samayso inaad istikhaaro la timaadi baa sunna oo shayga muxuu yahay waa sida guurka oo kale gabadha ina hebela inaad guursatay baad doonaysaa inay khayr ku tahay inay shar ku tahay caaqibadaadii arrinkaada dambe war uma haysi in istikhaaraad la imanaysaa ganacsi baad rabtaa inaad gashi ganacsigan inuu khayr ku yahay ku najixiyo in kale war uma haysi istikhaaraad tukanaysaa safar baad meel heblow aadaysaa istikhaaraad gelaysaa qof baad la shirkoobaysaa istikhaaraad gelaysaa iyo wixii ku saabsan waxyaabaha noocaas oo kale wey waa waxyaabaha mubaaxaadka ee qofku uusan war ka haynin sawaabka iyo khayrku midkuu ku jiro uusan war ka haynin baa markuu raba inuu sameeyo ayuu arrinkaas samaynaya ama waxyaabaha la og yahay khayrkooda la og yahay ama sharkooda la og yahay sida waxyaabaha khayrkooda la og yahay waxaa weeye cibaadaadka
iyo waxyaabaha wanaagga dadka loo sameeyo ixsaanka waa waxyaabaha la ogyahay macruufkooda wey cibaadaadkii salaad inaad salaatuleyl tukati salaatu duxaa inaad tukati farad weeyaan waxyaabaha noocaas uma baahna istikhaaraad wanaag iyo ixsaan dadka loo sameey dhihi maysi ilaahayow dadkan ixsaankan u samaynaya hadduu khayr ii yahay dhihi maysi wanaag dadka in loo sameeyo waa maaragtay iyo khayrka la sameeyo waa wax macruuf oo la yaqaano wey macaasida iyo munkaraadka istikhaare u tukan maysi ilaah waxaan xun inaan ka leexdo yaan istikhaare u tukanay ma dhaysa waad ka leexanaysa munkarkan iyo waxaan oo dhan kuwa ayagu istikhaare loo tukan maayo idan khulaasadii waxaa weeyaan asbaabaha istikhaarada keena waa waxyaabaha mubaaxaadka inuu qofku inuu sameeyo uu damco sida ganacsiga iyo guurka iyo qofka lala shirkoobahaya iyo safarta la gelahaya iyo waxyaabaha noocaasa yaa markii qofka ay ku soo dhaca ayaa la rabaa istikhaare inuu la yimaado ama waxyaabaha khayrkooda la yaqaano ama sharkooda la garanayo istikhaare loo tukan maayo qodob kale saddexaad mataa yabdow listikhaara mataa tabdow listikhaara istikhaaradu goormay imaataa goorbaa istikhaarada la samaynaya waa markuu shaygu qofku saa ugu soo dhaco dihnigiisa cinda xuduudi shayi fii dihnihi qabla an yajzima shaygu markuu saa kugu soo dhaco dalaq lama rabo inaad go'aansatay markaad go'aansato shayga go'aanaad ka gaadhay istikhaaraan tukan lama yidhaahdo laakiin markuu shaygii kugu soo dhaco ganacsi inaan sameeyaan rabaa gabadha in heblaad inaan doonaan rabaa markuu saa kugu soo dhaco markaaba istikhaaro la imow laakiin shaygii ood go'aan ka qaadatay lama og maartay ma aha istikhaaro la tukan maayo qodobka kale afraad istikhaarada waxay culimmadu dhahaan maartay istishaara ka horeysa intaada istikhaaro la imanin istishaaro horta la imow dadka mushaawaro weydii dadka ehlu khayrkaad ku tuhmaysi inaad mushaawaro weydiisi oo tiraahday walba arrintaa ka waran markaad ayaga weydiisi kadibna adigana istikhaaro la imow waa culimmada qaar baa arrinta imaam nawowi oo kale wuxuu leeyahay istikhaarada iyo istishaarada la hormarin buu leeyahay laakiin culimmada qaar ka mida way ka diidan yihiin oo waxay leeyihin istikhaarada horeysa kadibna marka waxaad keenaysaa marka mushaawaradii ayaad la imanaysaa imaam nawowi asagoo saasuu leeyahay oo wuxuu leeyahay yustaxabu an yastashiira qabla alistikhaara istikhaaradu intayna imanin ka hor inuu mushaawaro sameeyo ayaa marka fiican buu leeyahay imaam nawowi laakiin culimmada qaar ka mida waxay leeyihin xadiidku istishaare ma sheegine wuxuu sheegay istikhaaruu sheegay marka istikhaarada la hormarin bay dhaheen qodob kale shanaad waxay culimmadu ka hadlaan fii ma yuqra'u fii salaati اlistikhaara salaatu listikhaarada faatixada kadib maxaa la akrin waa 2 ragcadood maxaa la akrinaya qolo waxay dhaheen waxaa la akrinaya imaam nawawi iyo keyrkii waxay leeyihiin waxaa sunnaa in la akriyo ragcadda koobaad qul hal kaafiruun ragcadda labaadna qul walle labadaa in lagu kala akriyo laakiin xaafid alciraaqi raxmatullahi caleyh wuu diidan yahay wuxuu leeyahay wax daliil ah oo labadaas suuradood u cayimahaya ma haynuu leh wax daliila ma haynuu leh oo dhahaya salaatul istikhaar 2 ragcadood labada suuradood ha lagu kala akriyo bacdu salaf waxaa laga soo noqliyaa inay maarata markii faatixada la akriyo 2 aayadood oo midna suuratul qasas ku jirta midna suuratul axzaab ku jirta in la kala akrinayo oo maxay tahay suuratul qasas ragcadda koobaad waxaa la akrin bay dhaheen wa rabbuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar ilaa aakhir aaya laga gaadho akrinaya iyo aayadda kale ah ragcadda labaadna waxaa akrin suuratul axzaab aayadda ku jirta wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim buu akrin bay dhaheen marka laakiin wax daliila lama hayo wuxuu doonuu ku akrii karaa faatixada kadib baa culimmada qodobka 6 waxay dhaheen maartay mawdin ducaa اlistikhaara yani ducada istikhaarada waa goorta la ducaysanayo goormaa la ducaysan ma bacda salaadba ma salaada intaan laga bixinba ma sujuudda sida raajixa xadiidkana ku cad salaada markuu qofku ka baxo ayuu ducadan akhrisanayaa iyo ducadan haddaan soo qaadanay yuu akhrinayaa maxaa yeele nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maaragtay axadkiin hadduu arrin doono falyarkac ragcatayni min gayri alfariidati uma liyaqul bad umada tartiib bay keenaysaa marka sida raajixa xooga badan waxaa weeyaan salaada markii laga baxo uu qofka 2 ragcadood intuu tukado uu ka baxo markaasuu istikhaarada ducada yuu akhrisanayaa culamaa waxay dhaheen sujuudduu ku akhrisan qola waxay dhaheen intuusa salaamo naqsani oo atixiyaadka dhammeeyo ayuu ducaysanayaa intuu way bannaantay laakiin xadiidka sida ka muuqata salaada markuu qofku ka baxo wey salaada markuu qofku ka baxo weeyaan waxaa kaloo culimmadu ay dhaheen qodob kale maartay ku soo xigaya 7 ama isla qodobkaaba
ducada qofka hadduu xifdisanayn ducadan maxaa la samayn hadduu af carabi garanayo inuu intuu qalin ku qorto uu qalinka ka akhristo waraaq way u bannaan tahay bale ama kitaabkiiba uu la soo baxo qoray ilaana maadaama salaadii uu ka baxay inuu aayir iyadoo waraaq ugu qoran uu saa u akhristo saa ugu ducaysto way u bannaan tahay bay hadduu sa carabigi uu sa garin akhri karinna luqada uu garanayo ku akhrisan karaa bay luqada waad garanaysi baad ku akhrisan af Soomaali baad ku akhrisanaysaa oo macnaheedu ah ducadan macnaheedu af Soomaaliya English kolba luqadaad garanaysi baad ku akhrisan kartaa bay wax dhibaato ana male maxay diinteenu waa yusri culays ma aanin hada Sawaaxili garanaysi oo luqadaadu Sawaaxili tahay hadii af Soomaali tahay hadii ay tahay English tahay kolba luqada aad garanaysi ayaad aayar ku akhrisanaysaa af Carabiga aad garanaynin ama af Carabi hadaad garanaysi inaad xifdiyo fiican waa xifdii weyday qoraal waraaq ku qoro sida u akhri markaa sida ku akhri idan taana culimadu sidaas ay dhaheen waxa kale qodob kale ku soo xigay culimadu ay ka hadleen dhowr arrimood hadaad rabtay istikhara inaad u samaysatay maxaa sameeyni mesela inaad guursatay baa rabtaa ganacsi inaad samaysina waad rabtaa inaad maaragtay hebel la shirkoodina waad rabtaa intaas oo nooc kala duwan to kasta ma gees baad istikhara ugu samaysan culimadu waxay dhaheen labada dhinacba way banaantay to kasta inaad gees ugu samaysi oo maarta ganacsiga aad gees istikhara ugu tukatay guurka aad gees ugu tukatay way ku banaantay waxa kale oo ku banaan inaad jamcisina way ku banaantay oo ayagoo dhanba hal mar aad hal istikhara u tukatay oo markaa deedna asaad tiraadi oo ducada oo hal ducada ku ducaysatay way banaantay iyadoo arrintan waa arrin banaan way waxa kale culimadu dhahan istikharada ma la soo celcelin karaa nacam waa la soo celcelin karaa waa la soo celcelin karaayo waad istikharoon hadana tukan waad samayn kartaa wax dhibaato ama leh waxa kale culimadu ay dhahan istikharadu qofka markuu istikharado ducada uu tukado ma sugi ma waxba ka warsugi ilaa uu ama qalbigiisa u furmo waxa arka masa hawshiisa ku dhaqaaqi culimadu waxay dhahan markaa istikharooti oo ducada inta labada ragcadood tukati aad ilaahay baridi waxba si sugi meysii wixii baad go'aan ku qaadanood ku dhaqaaqaysaa wixii baad go'aan ku qaadanood ood ku dhaqaaqaysaa culimadu waxa kale ay dhahan laba ragcadood ka badan ma la tukan karaa qaar ba waxay dhahan may laba ragcadood ma lagu ekaanaya maxay xadiidku laba ragcadood buu nabigu sheegay fal yarka ragcatayn qola kale waxay dhahan way banaantay inkastoo xadiid daciifa uu ku soo arooray way banaantay bali afar ragcadood hal mar aad tukatay oo hal atiyaad aad u yeeshay waa la tukan karaa bay dhahan hadii laga badiyo wax dhibaato ma lahayn dhahan laakiin xadiidka in lagu qeydnaada fiican labada uu sheegay waxa kale oo culimadu ay dhaheen salaadaha sunnada ee rawaatibta ee duhurkii iyo cishaha iyo maqribkii sunnooyinkooda istikhara ma ka dhigan karaa lagama dhigi kare ilaa hal shart in la helo mooyaan intaada sunnadii duhurkii aad gelin hadaad niyooto inay sunnadiina ku noqoto istikharana aad ka dhigata aad leedahay way banaan tahay bay laakiin adoo sunnada dhexdeeda marahayo aayar sunnanimo u tukanayay istikharana ku darsadaad oo dhexdeeda aad tiraahday dhexdeedaba niyoonay laguma ogol intaada gelin inay sunnana ku noqoto istikharana ku tukati way banaantay arintaas inahaasna waxaan islaahay waa inaha istikharada iyo wixii culimada fiqiga ka saareen way ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa basmaal husna wa sifaat al-ula inuu xaqna tunuun irtaaqa xaq raacitaankiisa istikharadu aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ana inuu barto aad bay u fiican tahay umuuraha mubaaxa oo guurka iyo safaraha iyo safarta meel loo safro wadan loo safraayay iyo ganacsiga iyo cid la shirkoobahay iyo waxyaabahaas oo dhan in istikharada loo tukado oo ducada la akhristo ayaa sunno aad u qiimo badan nabigana uu bari jiray kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa sida waayad suurad quraan u bari jiray hal mar baa xadiidka lafdigiisa aan ku celinaya الحديث 321 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.